رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. سؤالها inaad shalay tolo joogteen baa laga yaabaa su'aaluhu maaha ka dooradii oo kaliya maaha direct question baa ku jira meelaha bannaan buuxi baa ku jira marka insha Allah su'aaluhu si siman ayaad u yeelan doontaan waqtiga nasiibka waxa ku guuleystay inay su'aasha koobaad helaan uhdas su'aasha labaadna waxa yeelan doonaa safe aid dan inta kadib waan bilaaban doonaa hadii la yiraahdo su'aasha koobaad waxa yeelan doona uhdus waxaana oranaysaa su'aasha koobaad sheeg qodobka sheegaya golaha wasiirada ee ku cad dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka sheegaya golaha wasiirada ee ku cad dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland baad sheegaysaa jawaab su'aasha haddaan isku dayno waa qodobka 49aad qodobka 49aad baan eegi doonaa وقضبك أفرس عشان أساس وكسحي جوابت السنة والصح سؤال شحيكتين وجود بدونا سؤال شحيكته وحيالان دونا سيف ايد قضب كان وحو كورانا يا شيك قضب كشيغيا حقاياها قولها إيو لطليال كعد دستور كجمهورية الصوماليلاند سؤال شاطئ اسكو دايو قضب كافر الحدنات قضب كافر الحدنات بين دونا وقلدي وقضب كسدحيلات اللحدنات سؤال شحيكتا أينو قد بدونا وسؤال السطحات وحنا يلان دونا أهدس مركز سؤال السطحات وحا كورنسا شيء قبل كأي كتر سنتهاي دقمدا حمر لوحيد أنا مقعي هاي أحمد مصطفى جامع كتر سن أورك أهدس حتى جوابتها اسكو دايو degmada xamar lagu xidh gobolka ay ka tirsan tahay waa gobolka Togdheer baan wada eegi doonaa gobolka Togdheer sidaas ayay sax ku tahay su'aasha xigteen u gudbi doonaa su'aasha xigta safe aid baa la su'aasha afraad sheeg gobolka ay ka tirsan tahay degmada Xalin السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جوابتها هدان اسكود سؤال جوابتها هدان اسكود دايو حكا ترسن داي قبل كالساحل بينو يجي دونا قبل كالسول ويان ساسي اي قلط كتاي سؤال شحيكتين وجد بدونا وحنا يلان دونا اهدس سؤال شحيكتا waxaa oranaysaa qodobka ka hadlaya baarlamaanka iyo fadhiyada wada jirka ah ee ku cad dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waa ba qodobka 46 تا قضبك سجالي السلطنات جاء قضبك شنيا فرتنات ها قضبك سديد السلطنات sidaan hore u sheegay wax ka socda ururka usdaas su'aasha jawaabta hadaan isku dayo qodobka 8 oo ah haadaynu eegi doonaa qodobka 8 sidaas ayuu sax ku yahay واي سؤال شحيكتا أينو قد بدون لادي لا يراضو سؤال شحيكتا واحد يلان دونا سيف ايد سؤال شحيكتا واحد كورانيسا وسؤال اللحاد قضب كشيغيا مقعابيد قدوميها محكمة السرة يقر صورياشا محكمة السرة با قضب كبغولي أفراد تا قضب كبغولي شناد جا قضب كبغولي اللحاد قضب كتطبيع السقاشناد سؤال جوابتي هدان اسكو دايو تا أو بقوليشنا إنه يجي دونا سيدا سايي صح كتاي واي سؤال شحيكتين وجود بدونا سؤال شحيكتين أهدس بقى يلانا يا سؤال شطبات ويان سؤال شحيكتين واحد كورنسا قضب كشيء يا مجعابستا يحيل كقادستا مدحدها يدها كوع دستور كجمهورية الصومال با قضب كبقول يا فريطمنات تا قضب كبقول يا صدحيطمنات جاء قضبك لبيا طمناد ها قضبك بقول إيش شيء طمناد بسم الله تسكت سؤال جوابتي إذا حويا باع وبقول يا فريت بنا
ba oo 114 aynu eegi doonaa sidaas ayay sax ku tahay waay su'aasha xigta aynu gudbi doonaa sif aid baa yeelan doonta su'aasha xigta waxay ku odhanaysaa qodobka ka hadlaya ciidamada booliiska iyo asluubta ee ku cad dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waa ba qodobka 123 ta qodobka 125 ja qodobka 124 ha qodobka 126 su-aasha jawaabteeda haddaan isku dayo waxa weeyaan ja oo ah 124 jaadaynu eegi doonaa saas sax ku tahay su-aasha xigtaynu gudbi doonaa su-aasha sagaalaad sida ku cad dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 108 guddida cadaaladdu waxa ay u xil saaran tahay daash bedelaada iyo anshax marinta garsoorayaasha marka inta ka dhex maqan ayaad sheegi doontaan insha Allah haddaan su-aasha jawaabteeda isku dayo waa magacaabista aynu eegi doonaa sidaas ayay qalad ku tahay waxaanay sax ku tahay shaqasiinta xilka qaadista dalacaada hoos u dhigidda su-aasha xigtaynu u gudbi doonaa waa su-aasha tobnaad waxaa yeelan doona safe aid waana su-aashii u dambeysay su-aashu waxay ku odhanaysaa sida ku cad qodobka 64aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland kalfadhiga ugu horeeya ee golaha guurtida waxa uu daash haddaan isku dayo su-aasha waxay noqonaysaa intaa ka dhimani waxa uu qabsoomayaa waynu eegi doonaa waa qalad waxaana sax ku tahay ku ansixinayaa xeer hoosaadka golaha sidaas ayay su-aalihiinu ugu soo dhammaadeen badiyaabo waa bahdeen dadaal baad muujiseen iyo karti labadiinuba garsoorka insha Allah inuu sheegi doono qolada badisay maanta wareegii labaadna saasuu ku soo xidhmay wareegiina qolada ka soo baxda u gudbi doonta haddii ilaahay idhaahdo ayaa u gudbi doonta wareegga saddexaad iyo finalka marka waxaan ku wareejinayaa insha Allah ustaadka iyo garsoorka si ay nagu sheegaan had iyo jeer ma wada qaada laba kooxood mararka qaar isku barbardhac way dhacdaa waa san naadir inta badan se waxa kaalinta loogu talagalo loo asteeyay inay kooxuni gaadho halkaa isku barbardhacu markuu yimaado haddana wareeg kale la qabtaa dabadeetana waxa la soo saaraa cidii kaalinta tagileed marka wareegii labaad oo maanta inoo qabsoomay ilaahay mahadii oo aan bogaadinayo labada kooxoodba waxaan ku horeynayaa kooxda safe aid oo aad iyo aad u dadaashay oo ka kooban 3 wiil iyo 2 gabdhood intii tartanka ay u soo xuleen safe aid oo wada tashi badan sameeyay oo dhiiranaan iyo kalsooni muujiyay waxa la weydiiyay 5 su'aalood waxay la seegeen 3 su'aalood waxay jawaabtoodu heleen 2 su'aalood waxay haystaan 2 dhibcood kooxda uhdas oo ka kooban iyaguna 2 gabdhood ama 2 hablood iyo 3 inan waxay muujiyeen karti dhiiranaan iyo kalsooni anigoo aad iyo aad u bogaadinaya waxa la su'aalay 5 su'aalood waxa ay seegeen jawaabteedii 1 su'aal taa macnaheedu waxa weeye 1 su'aal bay qaldeen waxa ay saxeen 4 su'aalood jawaabahoodii sidaa darteed waxay haystaan 4 dhibcood waxaanay u gudbeen wareegga saddexaad aad baan idinku mahadnaqaynaa dhammaantiin alxamdulillahi rabbil caalamiin ilaahay ma askale subxaanahu wa ta'aala ugu horeyn nagu caafimaad qabnaa isku keenay madashan bilana boqoran marka labaadna waxaan u mahadcelinayaa dhammaanba halwadeennada qabanayay tartanka muddada uu soo socday ilaa maalinka maantaaba iyagana ugu mahadcelinayaa sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa tartamayaasha oo haday noqoto ururka Safe Aid Community Organization iyo haday noqoto uhdasba kulley marka la yimaado goobta waa qasbiyan amba inaad adigu soo baxdaa amba inuu dhiga kale tartamaya soo baxo marka koobaad iyaga ugu hambalyeynaya waxaan leeyahay insha Allah ilaa kama dambaystana ilaahay ku guuleeyo waa soo dadaasheen dadaalkiinina waa la timaadeen sidoo kale waxaan mahadcelinayaa iyaguna xubnay qiimaha iyo quruxda lahaa iyaguna sida fiican u soo diyaar garoobay bahdiyaana waa bahdeen bay leeyahay aad baad u mahadsantihiin bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Jumar Barre
waxaan ka socdaa ururka dhalinyarada uhdes waxaan ahay agaasimaha ururka kolley halkan waxaynu joognay waa tartan aqooneed ay noo qabanaysay wasaaraddu tartankaana goob marka lagu tartamayana dee marka la tartamo qofunbaa badiya waxaan si gaara u hambalyaynayaa ururka dhigaygeena la tartamayey sayfeyd ama saasko oo leeyay dadaalka aad soo muujiseen waan idinku hambalyaynayaa waxaan si khaasa ugu hambalyaynayaa ururkan ka tirsanaya uhdes oo wareegii kama dambaysta u gudbay maanta iyagana waxaan leeyahay dadaalkii iyo kartidii waynu muujinay hadafka aynu halkan u nimi laba midun weeye in aqoonta aynu ka baranayno wadaniyadda inaynu xoojinno iyo bulshadii aynu u adeegaynay ee aynu qaabilsanayn iyagana inaynu dib wax ugu celinno ah wadaniyaddii inaynu dib ugu celinno labadaa ajenda ugu weyn tartanka aadna u mahadsantiin waxaan sidoo kale mahad celinayaa qabanqaabiyayaasha barnaamijka iyo wasaaradda dhammaantiin aad baad mahadsantiin waxyaabaha runtii aad iyo aadka u muhiimka waxaa ka mid aan aragnay in dastuurkii wax weeyaan maalinba maalinta ka dambaysa oo qaybitaankiisa iyo qaabka magaranaysa loo soo qaybaya loo soo akhriyaya uu horowsi kacayo oo runtii ay muujinayso in dadaal badan la soo geliyey oo labada kooxoodba ay soo geliyeen dadaal aad fara badan taa macnaheedu waxa weeyaan qofku markii wuxuu niyad ka tahay ee daljacayl ka tahay inuu si kastoo uu isleeyahay hawsha xil iskaga saar in uu xil iskaga saaray idinka markii hore voluntary ka shaqaynayay oo arrimaha bulshada ka shaqaynayay haddana arrintan aad maanta aad soo qaybteen sidaan aad u timaadeen inay muujinayso inaad ku dhiirateen labada group ee sida fiican u tartamay quruxda badan leh akhlaaqada leh iyo waxa weeyaan bahda daadihiyaasha barnaamijkan dhammaantood baad salaamu calaykum runtii hadalka intiisii badnayd waa la yidhi aanu mahadnaq iyo hambalyuun baan idiin dirayaa sida fiican aad soo tartamteen labadan group ee meesha fadhiya imika ee tartanka galay haddii la yidhaahdo groupka finalka tegay bay la tartami doonaa groupkan